aad baan salaamaya saaxiibada meel kasta aad joogtaan halkan ku soo dhawaada saaxiibada muuqaal kooban aynu ku eegi doono saaxiibada waa tuma haweeneyda ugu daada weyn iminkan isticmaasha aalada ugu isticmaalka badan ee TikTok lagu magacaabo daadeeda waa imisa waynu eegi doonaa saaxiibada sidoo kale waxaynu eegi doonaa halkee iminkan ay ku nooshahay haweeneydaasi waxay aad u xiiseysaa heesaha uu ku luqeeyo fanaanka codka dabacsan ee Sharmaboy oo heesaha inta badan Sharmaboy ku luqeeyo ay dabcan koobiye ku sameysaa xog ku saabsan arrimahaas inuu eegi doona saaxiibada ku soo dhawaada ugu horeyntii waxaan idin ka codsanayaa in YouTube ka hadaleenta 12 saaxiibada aad ku soo dhawaataan subscribe ilaagtana nagu caawisaan saaxiibada soo dhawaada waxaanu saaxiibada idin soo gudbin doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ee social media gaar ahaan aalada YouTube ka Facebook iyo waliba sida TikTok saaxiibada waxaad leeyahay soo dhawaada haweeneydan waxa ay ka mid tahay haweeneyda ugu daada weyn inta badan TikTok markaad maqasho waxa kugu soo dhacaya dabcan dad markaasi daayar ah oo dabcan 30 wixii ka hooseeya isticmaal laakiin haweeneydan daadeeda ay wali waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan saaxiibada ku soo dhawaada muuqaalkan kooban wayaha saaxiibada soo dhawaada ugu horeyntii hadii aynu eegno maamada waxa ugu qoran TikTok maama Westin ayaa ugu qoran runtii waa haweeneyda ugu daada weyn iminkan ba isticmaasha aalada lagu magacaabo TikTok dabcan heesaha inta badan isku soo duubtana وهيساو كل قيو فناكي من كنبه أدون كجلجلي نينك لقوم عبو شرماكي عبد الناصر ويان نينك اللي هذا شرمبوي ويان حتى بقى صاحب ذا طبعا سيدا أنا هورين كوش شيء بقى مع مدى دادي ذا طبعا إمي كان والي حدا سنشر ويان هذا سن كيرن هذا سن كوين ويان sidoo kale saaxiibada iminkan ba waxay aad iyo aad markaasi saaxiibo badan ayaa ka falceliyay oo dabcan isticmaalaha aalada TikTok hadaba heestii ugu dambeysay Sharmaboy waliba dabcan deeqsan ay ku wada luuqeeyeen waa sax ay copy ku sameeyeen ayadoo dhehaysa waa sax aad iyo aad heestaas ay ku luuqeynayso heestaas ayadoo ku luuqeynayso saaxiibada ayaa jirta oo inta badan TikTok isticmaalayso hadaba maama Westin waxa ay markaasi iminkan record cusub ay ka sameynaysaa aalada lagu magacaabo TikTok waana hooyada ugu daada weyn weeyaan iminkan isticmaasho aalada lagu magacaabo TikTok daadeeda waa 60 sano jir weeyaan iminkan waxay ku nooshahay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho waa maama aad iyo duran runtii dabcan dhankay waliba reer magaalnimada ay aad iyo aad ugu fiican tahay Allah ha noo dooro qof kasto markaasi hooyooyinkeena Soomaaliyeed kulay ma doonino inaynu wax xun ka sheegno maamooyinka Soomaaliyeed ceeb iyo ama ka kooyaan sidoo kale waxay aad u xiiseysaa sida aan hore kuugu sheegay baa heesaha ku luuqeeyo fanaanka codka dabacsan ee Sharmaboy hadaba Sharmaboy maxay tahay inta badan hooyooyinka way jecel yihiin aabooyinka way jecel yihiin hadda dhalinyaradana way jecel yihiin dadka daayartana way jecel yihiin runtii waa fanaan marka dabcan diyaar u hawayaan nolosha qof kasta oo dabcan ku saabsan weeyaan hadaba fanaanka lagu magacaabo Sharmaboy iminka wuxuu soo jiidasho aad iyo aad u baahan ayuu sameeyay hadaba Sharmaboy qodiisa waxaanu leenahay hadda hore u sii soco hadaba maamadan ayaa iminka record cusub ka sameysay dhanka TikTok sida hadda idinku sheegayba TikTok-geeda inta badan dad badan ayaa jira oo comment soo garay ama soo comment garay weeyaan hadaba dad badan ayaa markaasi soo comment dhiibtay dadka qaarkood waxay dhahayeen hooyo waad mahadsan tahay oo dabcan de hooyo magaal baa tahay aad iyo aad sidoo kale dadka qaarna waxay leeyihiin maxaa dhacay camal daawayaan maamada xilligan oo kale waa xilliga tasbaxa weeyaan maxay tahay sababta iminkan TikTok ay isticmaalayso maxay tahay camal xumadan iminkan haysataa maama Westin waa dadka inta badan commentiga soo qoray weeyaan oo hadaba saaxiibada qaarkood aynu soo qaadanay saaxiibada marka ma doonayo inaan muuqaalkan ku dheeraado kaliya waxaan idin soo gudbinayaa maamada ugu daada weyn iminkan ba isticmaasha aalada TikTok daadeeduna waa 60 sano jir weeyaan hadaysan ka weynin ama hadaysan ka heeran weeyaan maama Westin waxaan leenahay hadaba maamo hadda taladeeda qaadanayso waxaan jeclaan lahaa in gabiyahan ba iska dhaafto aalada TikTok maadaama uusan ahayn wax aad iyo aad u wanaagsan saaxiibada meel kasta joogtaan intan ayaa ku soo gunaanada ku soo gabagabeynaya meel kasta joogtaan noole kulantay